بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وين السلام عليكم جميعا. In fast loan waxaan ka hadli doonaa cashir qaybta labaad weeyaan. Markaa waxaan ka hadli doonaa loan waxa weeyaan qofku inuu qaataa oo bushaara lacagtiisa ah shaqada uu shaqeeyo arbestiidka iyo semesterka iyo xuquuq baa ka hadlana qof markuu xanuunsado. Aan ku bilaabo loan in fast loan som betalas ut vid ett tillfälle. Varje månad kallas månadslån. Bil walba qofku markuu shaqeeyo lacagtiisa helo bisha uu shaqeeyay 30 cisho lacagteeda månadslån baa loo bixiyaa oo nin bil shaqeeyay lacagtiisana bil walba bil buu ku qaata lacagtiisa. Om du får timlån får du ett visst belopp för varje timme du arbetar. saacad walba uu shaqaysid lacag baa qaadanaysa macnaha waa dadka ku shaqeeya saacado lacagta qaata team loan waxay saacado qofku markuu qaadanayo lacagtiisa inta saacadood shaqeysay 3 saacadood 4 saacadood uu siinayo lacagtaada way noqon kartaa 8 saacadood xitaa laakiin lacagtaada waxa lagu siinayaa team loan saacadaha inta shaqeysay marka meeshaas contract waxay ka waa team stelt weeyaan ma garatay waxay contract lacagtii saacado shaqaa oo ma aha kii qofka fast ama contract kale loo bixiyo baalkii tit begrens ama contract ama ka kale baalkii project iyo xeela team loan waa saacado ku qaadanaysa lacagtaada bishii baa lagu siinayaa saacadaha inta shaqeysa arbestiid saacadaha shaqada waa maxay islee weeyaan muxuu yahay waa dadku inuu saan u fahmaan noqdaha weeyaan waayo saacadaha shaqadu safaari waa 8 saacadood maalintii 8 ku dhufaa 5 40 weeyaan saacadood bay noqonaysaa weekly marka qofku intaa wax ka badan ma shaqeyn karo hadduu shaqeeyana waa in overtime loo siiyo lacagtiisu double bay noqonaysaa overtime baa loo bixiyaa ka waxa weeyaan qofku overtime markuu galo weeyaan badanaa kontraakyada qofka marka la wuu soo qaadan doonaa aftaalka wax ku qoran waa inuu qofku gartaa shaqadiisu waa maxay imsa saacadood weeyaan saacadahay go'antee state ba okay rest ama intaan leeyahay aan raaxada qaadanayo wax cunayo ama cabayo waa imsa saacadood waxyaalahaas oo kale in qofku ogaado saacadood intuu shaqeynayo isku wala xisaabiyo total ahaan inta tahay marka kulay saacadaha rest leedahay kuma jirto marka in ka saartid weeyaan meesha way saacadii waa joojisay shaqadii 8 saacadood shaqaa arbetar du 40 timmar dagtid så det att heltidsarbete var heltid var shaqays macnaha 8 saacadood arbetar du på andra tider till exempel på natten habeenka qofka shaqeeya så kan ett heltidsarbete vara mindre än 40 timmar way u yaraanaya habeenkii qofka shaqeeyo kale saacadiisu heltidka ka hadla markaa när en person som är heltid anställd arbetar mer än sin vanlig arbetstid kallas det övertid. Qof markuu shaqeeyo saacado ka badan wax loo bixiyaa overtime. Dadka Soomaalidu badanaa overtime-kayga waxaa iyo shift iyo waxyaalahaas oo kale. Du har rätt till extra ersättning om du arbetar övertid. Wax leedahay saacadaad oo tahay 140 oo waxay noqonaysaa double bay noqonaysaa. Waxay noqonaysaa 140 saacad wax ku shaqeynaysaa double halkii marka hore ka shaqeyn jirtay saacad walba 140 waxay noqon doontaa marka la isku daro 280 saas oo kale semester logan waa maxay waa fasax weeyaan wuxuu yahay yeelta semester logan har du rätt till minst 25 semester ama semester dagar per år inta ugu yar 25 cisho okej oavsett vilken anställningsform waxa la form ku ahaado ay nooc ahaado tills vidare fast jobb ahaado tid begräns avtal waxa ahaado du har eller om du jobbar heltid eller deltid labadaba deltid shaqaysa ama heltid waxay 6 saacadood deltidna waxay wax ka yar 8 saacadood 6 saacadood 5 saacadood 4 saacadood 3 saacadood det gäller då inte då som är visstid anställd med timlån dadka dad timlånka ku shaqeeya saacadaha lacagta lagu siiyo kuma jiraan way oo sharaxaad uu sababta waxay oo soo socda
Do some are visited and installed med team loan for installed tillägg med 12% ودين بروتون لون markay ahaatid qof team loan يعني saacado ku shaqeeya meesha kontraga uu yahay saacado waa lagu yeeray wax loonay kaalay 3 saacadood maanta noo shaqeeya kaalay 6 saacadood noo shaqeeya kaalay 8 saacadood noo shaqeeya kaalay 10 saacadood noo shaqeeya ma inta haataba boqolkiiba 12 loonka qaadatid baa for skat waliba skat ka hor baa lagu siinaya semester sheeting macnaha fasaxaaga waa lagu soo darayaa lacagtaadii lagu siin lahaa mushaarada qaadanaysay baa lagu siinayaa مع oo ku darsantay maca semesterkii sheetingkiisa maca fasaxii bedelkiisa macnaha faham qofku markuu team loan yahay waa qof aan fasax ku lahayn meesha macnaha waxay fasaxaaga oo lagu soo darayaa lacagtaadii hore lacagta bisha qaadanaysa waa lagu soo darayaa maca fasaxaaga du kan få bingara istället för semester om du slutar ett jobb och hadda shaqada ka midna oo kale meel baa ka shaqeynaysa shaqadii waa ka dhamaatay shaqadii midna oo kale kontraagii midna oo kale waa dhamaaday ama wax baa jira adigu shaqadii waa joojisay oo ma qaadan kartid inta kan ta ut din semester fasaxaaga ma qaadanaysa already wada shaqadii waa dhamaatay marka waxa lagu siinaya kontraag waxa lagu siinaya sanadkii dhamaa ershatankaaga ama 25kaaga cisho lacagtiisi waa lagu siinaya waxayna 12% 12 boqolkiiba 12 intii aad helaysay sanadka dhan 12 bilood om du blir sjuk när du arbetar qof markuu xanuunsanayo waa maxay taba dadku inay taa fahmaan weeyaan waayo dad badan oo qofka uu xanuunsado xamili kana shaqada midna uu xanuunsanayo in maaha inuu shaqo tago xaq baa u leedahay qofka uu xanuunsanayo inuu guriga joogo marka xagga waxa ka mid ah xuquuqda shaqaalaha midna oo kale om du är anställd och blir sjuk ska du berätta det för din arbetsgivare vad är det du tycker att xanuunsanaya arbetsgivare marka hore den första arbetsdagen du är sjuk marka ugu horeysa xanuunsatay maalinta lacagtii aad xanuunsatay in traad wax xanuunsanaya shaqada ma iman karo marka current stock balo bixiya current stock waxay macnaha waxa xaga ku qoran current stock waxa weeyaan first stock maalinta koowaad lacag ma lihid laakiin ayamaha ka dambaysa wax lagu siinaya boqolkiiba 80 baa lagu siinaya boqolkiiba 80 loonkaaga ama mushaarada lacagta qaatay bisha baa lagu siinaya maalinta intee weeyaan ama inta cisho boqolkiiba 80 of din loan lacagtaadiya om du är sjuk och borta från ditt arbete mer än 7 dagar hadda 7 cisho wax ka badan xanuunsatid waa most dadku qofka inay keeno intiig calaamad casbaan saara intiig waxayaan shahaadad ama warqad ama form oo ka soo qaadayo leekaraha oo cadeynaysa inaad qof xanuunsaday ama xanuun haayo aad tahay oo si lagu siiyo wax loo bixiyo khuloonkaaga lagu sii wado dadka la sleekarentig wax loo bixiyo leekarentig in qofka haysto midinsin underlag waxaan garanaa oo intii ugu dambeysay unstealing of toll waxaan kala dhaxeeya صاحب العمل صاحب الشركة ده وش كان يسيد أضيع وكونتراجا ورقة قوري يسيد مالته كبادة شقة بلابسيد أما مالته لبعض أضو قرت شقة بلاد ما شقة كور أضو بلابين أنا استلم أفضل كونتراجا هي فهم كانوا بحريه نردو فوق أربعة إسكندو إسكريبا أندر أنا استلم أفضل مركها شقة يسيد وح بحين تونتا أنا استلم أفضل كونتراجا سبحين يسا يعني ستيلينج أفضل إلا ستيلينج كونتراكت إسكادات ستو إنه كي يروح حسوية ديت نام وبرشلونة بركاغو إنه كيلو مقعاقة يوم برشلونة بركاغا دين أربيس وجفتر أو تايتل وحوين تحسنه مهم أربيس وجفتر كا وامحي شغال قوتي وامحي إنه قفك وهذا تدكين بدنا ويحاول يرستان ولقى لها قفك الشغال الله أفريقيا مركز شو قفك شغال بقى من شري لكن بدنا قفك الشغال تايتل كلية هي بقى إيكانية معنا وإنه فهم حقوقديسا خلدقيت يو رتقيت حق هذا ولا هاي واجب الأولى لابد من الجرتي وين مركا حق هذا ولا هاي وحقوق جرانس أربعة وقفت الكاو ومحتاج الكاو يو خلدقيت واجب هذا الأولى أنتي بعض سمعنا شغال سمعت أربعة مركا تاعتك ومعناها واحد شغال واحد أوكي استدران حتى الأولى لكن ديليفري نقطة أو واحد جارسي هذا مركا واحد هاي قف استدراها wax nadaafad ku gaaro
laakiin markii qof shaqada tahay wax qaaqaad u sii geegay meel soo kaxee macnahan transport kama shaqaysid macnaha wasaawiya qofka hadduu yahay matalan kale خوخوتيشka qofka lagu malanayo macni soo خوخوتيشka lagu malan karo shaqo le kara qabo ama shaqo macallin qabo ama shaqo maxaa ku ahaay xanaano qabo undur خوتيشka ama خوخوتيشka shaqadeedii maqan title ku xitaay arbes taana waa inuu way ku qoran tahay waxa qabanaysa kontraaggaaga ku qoran tahay waa inaad garatid waxaas arbes gifterkaaga wuxuu yahay arbes givernaam oo ka arbes plat meeshuu yahay shaqadaadu iyo arbes givernam magaciisa waayo maanta haddaanu ka shaqeeyo matalan kale stockholm haddaan lagu lahaa kusoo shaqeey matalan kale maalmo dee waa different weeyaan marka arbes platkeyga maaha maalmo baalki waa stockholm inta ula dhexeysa stockholm iyo maalmo waa garanaysaa okay hadduu qof igu raaho arbes giver saxiib kasoo shaqe waxa jira hadda wax loo bixiyo ershating oo lagu siinayo adiga oo dheeraada lacag dheeraada maal inta sii socotid lacag dheeraada waxyaalo badan oo different ah qaadanaysa oo dheeraada cuntadaada ku jirta xitaa hurdadaada xitaa hadda meeshu aad u fogtahay transportkaaga ku baxaysid wax walba waxa qaba arbes giver datum naar instelling barrier goortuu shaqadaadu bilaabanayso oo vilkan instelling form du har yo ma fast instelling weeyaan mise waa tidsbegräns instelling uppsägning tid alltså tiden från den dagen då du får veta att du måste sluta eller säga upp dig och fram till den och uppsägning tid waxaan shaqadu markay dhamaanayso kala dhamaanaysa shaqada macnaha uppsägning tid kaas asaga kugu cadeynaya arbes giver oo goor shaqadu ka dhamaanayso macnaha waxa weeyaan hadduu ninkii laftiisu go'aan ka gaaray ku leeyahay waxba jira shaqalaan baa jirta waxba jira saasa dhacaysa saasa tahay aduu waa inuu ku qoro goorta dhamaanayso dog do arbetar sluter goorta shaqadu dhamaanaysana waa ka different waxay macnaha kontraagu hadduu sanad yahay sanadku wuxuu bilaabmaya bilowgiisa ilaa dhammaadkiisa waa inuu markaa ku cusboonaysiiyo kontraaga hadday 2 sano tahayna waa saas oo kale oo ku qoranaysa bilowga shaqada goorta dhamaanayso loan som du får före skatt waxa loo bixinaa bruton loan skatka ka hor lacagta qaadanaysa mushaaradaada macaashkaaga lacagta qaadan doonta bisha inta tahay skatka ka hor waa intee hur mycket betalar semester du har rätt till hur mycket betalt semester du har rätt waa 25 cisho weeyaan inta leedahay nacam semesterka intee waa leedahay taana way ku qoran doontaa waxay ku qoranaysaa las kulli kontraaga hoosta waa akhrin doontaa waxa ku qoran semesterkaaguna waa siyaasad sharci wuxuu raacsanaya las siyaasad waxaan ka sheekeynaa taa practic dadku badan oo ku xidhibnaa practic waxay ku soo qaatay practic waxay dadka aan xirfad lahayn qof xirfad leh qof xirfadiisa dhulka kala yimid laakiin xaggan different weyn u kala dhaxeeyo qof suuqa shaqada shaqo ka waayay qof matalan kale sifiga ku xayrmaday oo muddo dheer sifiga dhiganayay markaa afka ku yaraadkaada lagu lahaa practic baa lagu geenaya dadkan way inay gartaan practic muxuu yahay muxuu faa'iido u yahay maxaad xaq u leedahay كل وانا أقول هاي حقا مركو قفوا كوتشرال بس في مدينك وحلا سينا وح براكتيك لو بحيا الله دريا ما دام تقفوا وانو هيسمى مركو ورا تجابو حرفضات سود جودي هذا مركا وام حي حسب ما رسا إت بروسيت أت بروفا أو إت إركه أو أت سكابو كونتاكتر وكون في عنتها مركو ورينا هذا لفت هذا تجاب سحر فض كوع عصب هاتو أما مد هذا هيسن تلاقي ديفرنت ولا حقا أو وكلا دحيان marka qofkii tijaabiya fiican meeshaan wuxuu ku sameyn karaa wax loo bixiyo contactor macnaha network macnaha dadka xiriirka bulshada shaqaalahan la xiriiraysa dad baa baranaysa arbes giver laftiisa baranaysa meelahaasna waa dadka meelaha badan contactka laga helo qofku inuu firfircoonada fiican u badanaa dadka dhex galo iyo saas oo kale aduu aardu inscribe arbes mid qofka arbes mid ku jira kulay oo practical loo diro wuxuu leeyahay wax loo bixiyo activities tooda oo kala day bro waxay lacagtu qaadanay qofka bishiin cantii markuu maadaama arbeet ku jiro badan dadku waxa practic diraan waa arbeeterka weeyaan ama qofku markuu jiro iyo toolkeedkii waxyaalaha kale bro am det kan skrivas
it aftal waana fiican tahay qofku markuu contract oo markuu tago practic inuu aftal u kala dhaxeeyo asaga iyo arbes giver ah meesha uu ka shaqeynayo goorma saacada soo galay mise arbes giverkayga waa maxay isla contractgii shaqadoo kale laakiin waxay ka duwan tahay tan lacag ma qaadanaysid waa practic baa ku qoran macnaha practic baa qofka u shaqeynaysa waanu halegarkiisa ku qoro practic intee weyn muddadu waa maxay maahina 3 sanadood practic qofku uu shaqeeyo oo dee 3 sanadood shaqeynaysa practic macnaha waa muddo dheer okay muddadaasi qofku dee xir baa tahay aduu qofku inuu ka shaqo practic laakiin maxaan ka heli doonaa practic dee waa inuu qofku garto shaqo ma lagu siinayaa sameeya okay maxaan waxyaalaan ka heli doonaa maxay waa inuu qofku inuu garto after absolute practic for it arbes intig ila arbes bitig taasna waa muhiim meel walba doctor practic maadaama oftaalkan adu warqad baa kala qoranaysaan oo contract oo wax saas oo kale nacantina tahay practic oo kale kadib marka muddadu dhamaato sila dhalinyarada kale dhigata gymnastic wax loo diro badanaa wax loo bixiyo erkis practic oo kale xuquuqdaas oo kale leedahay waa in tiig lagu siiyo ama bitiig lagu siiyo arbes giveraa u tagaya saaxiibka shirkadda waxaan u shaqeeyay matalan oo kale 3 bilood 4 bilood 6 bilood sanad baa practic sameynaya meesha oo aan waxaan waa isku arkay matalan practic inuu anfacayo waan sii waday si xirfadda u sii barto matalan oo kale okay intiga inuu siiyo way marka aan ka qaato hay qofka inuu iloobaba maaha oo markaa CV-ga inuu ku qoro practic soo qaatay imisa bilood weeyaan CV-gana ku qornaato intigana inay haysatay caddeynta hadhow shaqo kale marka aad raadsatid oo ku yeero saaxiib malku laha maxaad soo qabatay maxaad taqaanaa waa inaad tusid intiga waxyaalaha haysatid mid kale jirta waxa weeyaan suudan gudaheeda waxaa jira qofka hadduu ka shaqeeyo matalan oo kale anuu sideedana dhulkayga kama soo shaqeyn nadaafadan sheegay sideedana ma haysto shahaado laakiin shaqaan galay anu shaqada waxa ka shaqeeyay muddo 3 sano ah waxa uu qalmo 3 sano haddaan ka shaqeeyay 2 sano wax ka badan macnaha waxa weeyaan wuxuu u dhigmataa inaa haysto intiig macnaha shahaadad ah inaa ahay nin yaqaana wax loo bixiyo shaqadan ama mihnadan isteedara nadaafadda in taafa dadku fahmaan ba fiican السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام دمانتي إنها تسوع عشر كويه هاي ونور شيء جامعة أداد بن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته